munaasabad ballaaran oo loogu magac daray Somali Star Award ayaa waxay ka dhacday hotelka Westcoast ee magaalada Delft. munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa in lagu abaalmariyo shakhsiyaadka howldoorka u ah bulshada ku nool magaalada Delft iyo guud ahaan waddanka Netherland. munaasabadan ayaa waxaa soo abaabulay ururka midnimo oo ay ku midaysan yihiin Soomaalida ku nool magaalada Delft. waxna fikirka qabashada munaasabadan curiyay aqoon-yahano wax ku bartay waddanka Holland, kuwaas oo ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Delft Cabdikariin Maxamuud Sheekh Xuseen iyo waliba Qaalid oo ah xildhibaanka kaliya ee Soomaalida waddanka Holland ugu jira dawladaha hoose ee waddanka Holland. inta ay socotay munaasabadaas ayaa waxaa bilado la guddoonsiiyay arday aqoon-yahano xubno u dhaqdhaqaaqa bulshada. waxaana xubnahaasi ka mid ah dhanka ardayda Maxamed Yuusuf Askari, Shukri Hamza, Abdi Malik, Mustafa iyo Sahrash Ismaaciil. dhanka aqoon-yahanada Ducaale Ali Yuusuf, Qadro Ibrahim. dhanka waxqabadka bulshada Sheekh Ismaaciil Daahir Barre, Cabdilatiif Axmed Maxamuud, Axmed Yuusuf Liwaadan, Cabdiraxmaan Baashi, Aamina Maxamed, Shukri Cabdisalaan iyo Xaliima Mayow. haddaba waata munaasabadii oo inoo daafurayaan Sheekh Cumar Weheliye iyo gudoomiyaha ururka midnimo Ibraahim. taqwada Ilaahay iyo cabsida Ilaahay iyo inaynu ku dadaalno taacada qof walba oo ay tahay maslaxadeena adduunka iyo aakhirada bay ku jirto. tira badi aan waxba taynin laakiin aan qiimo lahayn oo muuqanin oo bulshada ay ku dhex nooliyaan ka muuqanin oo wax aad u liita. taasna waa qodob kale oo leeyahay war bulshadeena haddaynu Soomaali nahay war aynu dib isugu noqon oo aynu dadaalno oo bulshada inteena yar tahay aynu isqaab amaartay aynu ku dadaalno ma huwa maxuu ahaay عناصرta loo baahan yahay inaynu ku dadaalno oo jiilkeena yarka oo soo korayo ubadkeena waxa weeye dadkan da'daahi waxa lagu talagalay jiilka ka dambeeyo inuu wax u dhiibo waxaynu ugu talagalnay kuweena yarka inaan u gudbino. barnaamijkan ujeedadeedu marka waxay tahay in oo dhalinyarada jiilka yar in la tusiyo dadkoodii inay yihiin dad oo wax soo bartay, in ay naftirkooda wax soo baran karaan, heer sare gaari karaan, in aan ku xirnayn inaad adiga jirkaagu madow yahay ama Afrika inaad ka timid. waxaan malaynayaa carruurtan quruxda badan ee abaalmarinta la siiyey dadaal weyn bay soo qabteen. waxay naga mudan yihiin inaan لا تبعي سكندات سكون من أوسع بينه. دعاء علي. عاديا ماشان هوشان مركان قبطي أما هوشان هذا وضعه ما قبل ما ركتا أمان أحمد وهلو أمان ما إجاها لكن وهو أن جعله أو متقنا ودنيه بكتاه نمو بمان صوم ودي هذا 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 شادير كان ديبا هذا وحنسينا عبد الكريم سنين قالب أو نك نوفر يوم خميتي كدلفتا أتا يوم سنين حتى نحن سنين ولا شيء القلب أبنول هذا ما ستاهي طبعا إيش تحصل لك أنت بدين تلبسوا يستأجر ولا قاعد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما ستاهي
dhammaantiinna sida sharafta leh igu ixtiraamteen aad baan ugu mahad celinayaa aad bay ugu qiimo badan tahay biladan runtii ma filanaynin hawsha badankeedana waxaan u nahantii iska lahaa hooyooyinkan halka jooga maanta oo wax badan laf dhabarta waa umada marka runtii ayaga magacooda ayaan ku qaadanaya laakiin ayaga istaahila marka shukran marka ugu horeysa adigu biladan noo mudnay fikirku ma soo jeediyey hawsha badankeeda xafuriya cabdikariim iyo guddida maanta fadhida iyo hawsha cali yaxya oo wata in lagu kaalmeeyo ayaan soo jeedinayaa isla markaasna waxaan jeclahay shahaadadii in la isiiyo aan guddoonsiiye cali yaxya aad baad u mahadsan tahay midaan midka weyn baad ka astaahaysaa ummadda laakiin muuqaalkeedu waa yar yahay iyo martaqaana qiimaan haddii la yidhaahdo lacag haddaan ku sarrifan lahay laakiin xasuusteeda ayaa weyn sheegaayo qorsheyn meelna intaan ka khudbeeyo ama waxaan ka sheego waxaan rabay oo keliya in aan midnimo yidhaahdo ilaaliya midnimadiina muhiim bay tahay midnimadiina midnimadaas waxaa ku ilaalin kartaan inaad iska waraysato dhalinyarada meesha taagan ee shaqada kala duwan qabtay kuwa meesha gudaha fadhiya kuwa badan oo naga maqan runtii mar walba annagoo isdagaalayana haddana waa inaan wada joognaa ubaxan taasoo ah gabar mar kasta u taagan adeega bulshada oo meel kasta uga yeertid u taagan ummad salan inuu adeegto taasoo la yidhaha cadar gabadhaas u yeeraya dhammaantiin waa mahadsantiin cabdulaahi axmed cabdulaahi luunga loo yaqaano kolleyba intii taqaano waxa weeyaan waxaan ahay nin asalkiisa hore ka yimid boondheere soonaha maanabooli oo loo yaqaano ceel muude waxaa halkaan ka salaamayaa hooyaday macaan oo weli ceel muuda meel walba aad joogtaan ummadda reer dalaf ku dabadayasho aad u mudan bay mudan tahay waa meel aanan lagu dhaqmaynin waxyaalaha meelaha kale lagu dhaqmo waa ummad hal meel isku wada raacsan hal urur keliya unbaa ka socda marka waxaan oran lahaa ku dabadayasha annaga ayaa mudan badan oo ahayd mid ugu horeysay nooceeda ah oo lagu qabto waddanka Holland ayaa waxa lagu wadaa in sanad walba lagu qabto magaalada Delft علي داهر عيد تي في عالمي هون كيبل نيذرلاند